Assalaamu calaykum. Maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan dadkii loo yaqaanay Mongooliyiinta iyo duulaamadii ay qaadeen. Mongoolku wuxuu ahaa dad reer miyi ah oo u noolaa qabiilo kala tagtagsan kuna tirsan Mongooliya iyo galbeedka Shiinaha. Mudnaanta midowga qabiilada Mongooliyiinta waxaa iskale shakhsi keliya oo la dhaho Temujin, isaguna aaneys ka dhigtay Genghis Khan. Sanadkii 1260 miilaadiga ayuu mideeyey. Dagaalkii u horreeyay ee Genghis Khan ee ka baxsanaa Mongooliya wuxuu ku qaaday boqortooyadii Tashaya ee galbeedka Shiinaha, qabsadeen caasimadeedii. Sanadkii 1209 Genghis Khan wuxuu isku ballaariyay gudaha Shiinaha waxayna rideen xukuumadii ka jiray. Sidoo kale wuxuu qabsaday caasimadii Tushkandu. Sanadkii 1219 Genghis Khan wuxuu riday dowladdii Umayyadeed ee dhulkii Faris iyo Afghanistan wuxuuna dilay Suldaan Maxamed Shah. Sanadkii 1223 miilaadiga wuxuu awooday hogaamiyihii Sabutay inuu gudaha u galo dhulkii Ruushka iyo baabi'intii ciidanka Ruushka dagaalkii Kalkata. Sidoo kale wuxuu qabsaday caasimadii Ruushka ee Kiev iyo dhulkii Qowqaas. Sanadkii 1227 miilaadiga waxaa dhintay Genghis Khan isagoo ka tagay imbraadoriyad weyn oo dharan Kuuriya iyo dhulkii Faris ee maanta loo yaqaano Iiraan. Sanadkii 1229 miilaadiga waxaa xukunkii la wareegay Oqday Khan isagoo taabacsan siyaasadii aabihii. Wuxuu qabsaday badankii dhulweynihii Ruushka, Georgia iyo Armenia. Kadib furashooyinkaas ay furteen Mongooliyiinta Ruushka waxay wajaheen bartamaha Yurub waxayna awoodeen inay ku dowlaan Poland, Croatia iyo Bulgaria. Waxaa isbahaystay reer Yurub si ay isaga joojiyaan faragelinta Mongooliyiinta ku hayaan, waxaana isbahaystay Poland, Croatia iyo mactableedii fardooleeda ahayd. Laakiin waxaa jabiyey Mongooliyiinta iyagoo sii watay duulaamadoodii gudaha Yurub. Wuxuu hadafku Mongooliyiintu ahaa inay gaaraan imbraadoriyadii Roomaan ee Jarmalka, laakiin waxay ku joogsadeen magaalada Vienna ee caasimadii Austria. Sababta waxaa ka dhintay hogaamiyahoodii Oqday Khan. Hogaamiyaashii Mongooliyiinta waxaa lagu khasbay inay joojiyaan duulaamada kuna soo noqdaan Qura oo ahayd caasimadda imbraadoriyadooda ee Mongooliya si loo doorto Khan cusub oo hogaamiya Mongooliyiinta. Waxay ahayd caadada Mongooliyiinta inay dib u soo noqdaan markuu dhinto Khanka weyni si loo qabto kalfadhi doorasho loona doorto hogaamiye cusub. Kadib dhimashadii Oqday Khan, imbraadoriyadii waxaa ku dhacday inay kala maqnaadaan 5 sannadood, waxaana sababay khilaaf soo kala dhex galay hogaamiyaashii Mongooliyiinta ilaa xukunka uu la wareego Juyu Khan. Waqtigii hogaamiyahan cusub waxaa caasimadda Qura yimi ergey baadari ah oo ka socda kaniisadda galbeedka isagoo ka doonayay isxulafaysi dhex maro Mongooliyiinta iyo kaniisadda galbeedka. Sanadkii 1251 miilaadiga wuxuu noqday Manchukuo Khan, Khanka weyn ee Mongooliyiinta. Shah Manchukuo Khan iyo walaalkii Kublai waxay la dagaalameen boqortooyadii Sung ee Shiinaha, waxayna ku duuleen Shiinaha ilaa ay wada qabsadeen Shiinaha oo dhan, hoos keenana xukunkooda. Waxayna aasaaseen xukuumad la dhaho Yuanta Shiinaha Mongooliya. Galbeedka waxay awoodeen askartii Holoka Khan inay qabsadaan kooxdii loo yaqaan Ismaaciiliyada iyo inay burburiyaan qalcaddii Iiraan. Howlaanku wuxuu u jeestay dhinacii dowladdii Cabbaasiyiinta ee Baqdaad. Sanadkii 1258 waxaa dhacday caasimadii Baqdaad ee khilaafadii Cabbaasiyiinta oo ahayd caasimad, waxaana qabsaday khilaafadii Muctasim Billah. Mongooliyiintu waxay burburiyeen caasimadii Baqdaad, sidoo kale waxay baabi'iyeen maktabadii weynada caanka ahayd ee Baqdaad, waxayna dileen badanka dadkii deganaa magaalada. Dhacdadaasina waxay ahayd murugo weyn oo ku dhacday caalamul Islaam. Mongoolku wuxuu go'aansaday inuu ku duulo dhulkii Shaam iyo Masar, laakiin waxaa jabiyey Sayfudiin Qudsi wuxuuna ku jabiyey dagaalkii Cayna Jaaluud. Asbaabaha jabitaanka Mongooliyiintu waa dhimashadii kadiska ahayd ee Manchukuo Khan iyo soo noqoshadii hogaamiyaasha Mongooliyiinta si loo doorto Khan cusub sanadkii 1266 miilaadiga. Kadib markii xukunka la wareegay Kublai Khan wuxuu isu diyaariyay inuu ku duulo Jabaan, laakiin kuma uusan guulaysan sababtoo ah duufaano ayaa ka burburiyay gaadiidkiisii. Kadib dhimashadii Kublai Khan, imbraadoriyadii waxay u qaybsantay 4 qaybood: qabiiladii Dahabiya ee Ruushka, Al-Khanaad ee dhulkii Faris, xukuumaddii Yuan ee Shiinaha, Khanaad Raqatiya ee bartamaha Aasiya. Waxaa loo catabiyaa Baraka Khan, hogaamiyihii qabiilada Dahabiya Ruushka. Wuxuu ahaa Mongoolkii u horreeyay ee hogaamiye ah haystana diinta Islaamka, isagoo faafiyeen Islaamkii. Wuxuu ku faafay Al-Khanaad Faris. Mongoolkiina wuxuu qayb ka noqday xadaaradii Islaamka. Muddo kadib hogaamiyaasha Mongooliyiintu waxay ku kala biireen diimihii iyo dhaqamada dadka ay xukumayeen ilaa laga saaro ugu dambeyn Shiinaha
Yurub iyo dhulkii Faris. Waxaa loo ictibaaray Mongooliyiinta imbaradoriyadda ugu weynayd ee xukunta dhul xidhiidha, waxayna xukumeen masaaxadda dhulka boqolkiiba 20, Jabaan ilaa bartamaha Yurub. Nidaamka ciidanka Mongoolku wuxuu ahaa mid fudud laakiin awood iyo xoog leh. Ciidanku wuxuu isugu jiray fardooley iyo infantry iyo qaansooley. Wuxuu ahaa duulamada Mongoolku mid daran oo dhiig badan ku daadiyay dhulka. Dhammaan magaalooyinka ay qabsadeen sida Baghdad iyo Kiev, Mongoolku wuu ilaaliyay dadkii yaqaanay dhismayaasha iyo xirfadaha gacanta ee ku noolaa magaalooyinka uu ku duulay si uga faa'iideysto xirfadahooda yaqaanaan. Maanta mawduucan intaas ayuu ku eg yahay. Fadlan haddaa ka heshay mawduucan like saar kanaalkana subscribe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.